xirfadda sawir qaadistu waa xirfad ka mid ah xirfadaha aan jeclahay. magacaygu waa Cabdishakuur Ciise Cali ku magac dheer Cabdishakuur Baxnaani ku dhashay ku barbaaray waxna ka barta mid ka mid ah iskuulada magaalada Qardho dhamaynayna sanadka 2020 fikirka inaan sawir qaadan noqdo waxay ugu dhalatay 2017 kadib markii aan arkay sawirada qaab qaldan loo qaaday oo wareegaya social media kadib dhiirigelin aan ka helay asxaabtayda ayaa sababtay inaan noqdo sawir qaade la bartay. xirfadda sawir qaadistu waa xirfad ka mid ah xirfadaha aan jeclahay. ma jirto cid gaar ah oo ii dirta bilicda dalkayga hooyo balse aniga ayaa isku xilqaamay. saaxiibada aan ku leeyahay baraha bulshada iyo kuwa ila jooga ayaa igu dhiirigeliyay inaan noqdo sawir qaade kadib markii aan garab ka helay waalidiintay iyo asxaabtayda kala duwan. hadda sawirada aan qaaday qayb ka mid waxay ku dhagan yihiin goobaha ganacsiga iyo xarumaha dawladda. caqabadda ugu weyn oo ku qabsanaysa waxay tahay dadkii aan fahansaneyn xirfadda sawir qaadista ayagoo ka cararaya kaamirada. maalmaha kamid aan ku guda jira shaqada xirfadda sawir qaadista ayaa waxaana dhex martay sheeko aniga oday reer miyiga anigoo ku guda jira sawiradii qaadaya meel duxa aniga joogna ma ogeyn marka in geela la joogo. kadib anigoo ku guda jira sawiradii qaadayo meel iga soo baxay isagoo hadal dheer ku hadlaya ayuu ii digay inaan qalabka iyo waxaan wato dhigo. kadib anoo yaaban oo meel hadalladu ka yeerayaan isfiirfiirinaya ayaa waxaan maqlay xabad iga dul yeertay. waan gabaday odayga waan is aragnay kadib waan fahansiiyey waa ula dhacay sawirada qurux badan aan qaaday. waan jeclahay xirfadda sawir qaadista waana jeclahay inaan tababaro inta aan hadda haysto in kasii badan inaan helo. waxaan jeclahay inaan u shaqeeyo wakaaladaha sawir qaadista adduunka. ugu dambeyntii waxaan u mahadcelinayaa asxaabtayda kala duwan saaxiibada baraha bulshada igala socda mid inuu kuma wada mahadcelin karo balse dhammaantiin waxaan leeyahay mahadsanideen dhiirigelintiina joogtada ah aad mar walba ila garab taagantihiin insha Allah maalmaha kamid ayaan guuleysan doonaa haddii Rabbi idmo.